gacanta ayaa lagu soo dhigay mid walibana waa uu naxsan yahay waxayna saddexdoodaanba ku eedeysan yihiin in magaalada Qaayib ay ku kufsadeen isla markaana ay nafta ku dhaafsheen hooyo Soomaaliyeed iyo saddex gabdhood oo ay dhashay iyagoo u dilayay isla markaana u kufsanayay aana qabiil darteed raggan hayb ahaan waxa ay ku hayb yihiin madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo cadaado ay ka soo wada jeedaan beesha magaaladaasi degta ayaana talaabtan qaaday oo raggii gacanta laamaha amniga ku soo sintay waxaan rabaa inaan kula wadaago raggan la soo qabtay iyo ragga kale ee maqan sida loo soo qabtay iyo kuwa haatan lagu baadi goobayo isla markaana duurka cadaada laga raadinayo balse intaan guda galin wali aynu raadino xaqa hooyadii Soomaaliyeed iyo gabdhaheeda ay intii la kufsaday haddana la gowracay waliba qoorta markaas laga wada jiray wali cadaalad aan la raadino muuqaalkan qabo oo lay garay sidoo kale qabo oo sheer garay meel dheerna gaarsii hooyada Soomaaliyeed iyo gabdhaheeda waliba hooyada gabdhaheeda intii lagu hor kufsaday ayaa lagu hor gowracay iyadiina intii la kufsaday ayaa la gowracay sidee sheeka noocaas aan u tabinaa aragtidaada qaybta hoose commentiga noogu reeb soo dhaw daawada magaalada Cadaado ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxa ka soo baxaya warar waaweyn oo xasaasi ah raggan aad u jeedi kartaan ee indhaha ka librigsiinaya waxay hor taagan yihiin laamaha cadaaladda waxa gacanta ku soo dhigay beesha Saleebaan ee magaalada Cadaado degta oqaal odayaal iyo dhalinyaraba duurka ay beeshaasi galeen waxa ayna waqti iyo juhdi ku baxsheen sidii ay raggan laamaha cadaaladda ay gacantooda u soo gali lahaayeen ugu dambeyn waa la soo qabtay oo saddexdan nin waxa la sheegay inay qayb ka ahaayeen raggii kufsaday isla markaana nafta dhaafiyay hooyo iyo saddex gabdhood ah oo ay dhashay waxa la sheegay sidoo kale in saddex kale ay dhiman yihiin isla markaana ilaa iyo haatan beesha ay ku raad joogto dhacdadan argagaxa leh ee raggan ay geysteen maalin ka hor ay ka dhacday duleedka magaalada Qaayib ee gobolka Galgaduud iyadoona halkaasi loo geystay hooyo Soomaaliyeed iyo saddex gabdho oo ay dhashay kufsi wadareed isla markaana afartoodiiba la gowracay oo nafta la dhaafiyay dadka sidaas loo galay hayb ahaan waxay ka soo jeedaan beesha degta magaalada Xiindheere ama sidoo kale beesha Duduble waa ka salaamaha cadaaladda ayaa lagu soo simay maamulka Galmudug wax door ah kuma lahan qabashada dadkan madaxweyne Qoorqoor oo ay raggan ku hayb yihiin oo dhowr jeer damcay inuu rag kale uu ku kaarta baxo waa la fahmay laakiin beesha cadaaladda degto ay bulshada Soomaaliyeed dhamaantood caaw waxay ku amaanayaan go'aankii ahaa in ay raggan soo qabtaan ay qaateen dhamaantoodna waa ay ka xumaadeen waxayna ku tilmaameen arrin gunnimo ah isla markaana ragga noocan oo kale ah aan bulshada lagu sii dhexdeyn karin adigu saddexdan nin haddii gacanta lagu soo geliyo oo gal faylkooda lagu dhiibo maxaad ku xukumi lahayd saddexdoodu haatan waxay ku eedeysan yihiin kufsi iyo dil wadareed hooyo Soomaaliyeed ay gabdhahoodii ku hor kufsadeen kadibna iyadiina way gowraceen hooyadiina nafta ay ka qaadeen adigu maxaa ku xukumi lahayd aragtidaada qaybta hoose commentiga noogu reeb muuqaalkan